بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وعن كسو جرني شروط وجوب الصيام عشر كان ديني وعشر كي سدادي طبنات وحنو قهد لنا شروط وجوب الصيام وحن صوتر إني شروط صومك أو ku waajibaya qofka hadii laga helo korkiisa waxa kamida shuruuda soomka waajibinaysa qofka inuu aqligiisa saxiix yahay qofka waalan soomku waajibi maayo mana ka ansaxayo waxa u daliila xadiiskii Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu oo ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yiri ummadayda qalamka waa laga kor yeelay 3 jeer kan hurdayo ilaa uu ka kacayo iyo canuga sabiga ah ilaa uu ka qaangaarayo iyo qofka waalan ilaa aqligiisa uga soo laabanayo waxaan soo sheegnay ahkaamta ku saabsan qofka waalan iyo waalidiisa nooca ay tahay waxa marka aan ka hadalnay mas'alo kale oo ku saabsanayd ninka isku dardaray oo gaare lowlowga waxyaalaha ay tahay qaabka loola muaamaloonayo iyo in uusan soom ku waajib ahayn waxa marka ayadana aan sabab bardhignay mas'alo kale oo ah in maalintiina uu qayb soo jeedo oo caafimaad qabo aqligiisa qaybna oo aqligiisa uu tagayo waxaan raahdaa hadii inta badan oo aqligiisa taam yahay soomkiisa waa ansaxaya marka waxa isweydiin la walaalayaal oo isweydiinay ma xukmu sawm an-naa'imi qofka hurdaayo soomkiisa xukumkiisa wuxuu yahay marka waxaan raahdaa qofka saa'imka ah hadduu jiifto laakiin soomka uu niyeestay soomka isaga waa uu ansaxaya culimada badankooda siday qabaan rugniga afraad ama shardiga afraad aan dhaho oo soomka uu ka waajibayo waa qofka inuu magaalo ku nag yahay iqaama qofka musaafirka ah korkiisa soomku waajib ma ahan waxaana u bannaan inuu iska afuro laakiin korkiisa waxa ahaada inuu soo qadeeyo ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay faman kaana minkum mariidan aw ala safarin fa'iddatun min ayaamin ukhra faman kaana qofkii ahaaday minkum mariidan qof xanuun buka oo jiran ama safar ku sugan korkiisa waxa ahaada maalmayaal kale marka safarka asaga ah hadduu yahay safar raaxa leh oo diyaarad ku safraayo ama tareen oo ku safraayo ama markab oo ku safraayo soomkana uu ku dhibaatoonaynin qofka isaga waxa uu fadli badan inuu iska soomo ala qowli jamhuur ulama culimada badankooda sida ay qabaan waxa kale oo shardi ah soom macnaha marka musaafarka galaayo oo safraayo inuu yahay safarka isaga safar mubaax ah haddii safarka uu mubaax uun ahayn oo banaanayn oo macsi iyo maxay ahayd waxyaalo caynkaas u socdo yaani soomka ma qadaynaayo bal loo ruqsayn maayo inuu afuro way marxaba marka walaalayaal waxa aad iyo aad u muhiim ah mas'ala la isweydiyo la yiraahdo yaa fadli badan qofka musaafirka ah inuu soomo iyo inuu afuro yaa fadli badan afarta imaam iyo saxaabada badankooda jamhuurkooda iyo taabiciintii waxay isku raaceen ilaa anna sawma fi safari jaa'izun qofka musaafirka ah soonkiisa inuu bannaan yahay saxiixun saxiix inuu yahay munaqidun oo guntamaayo soonka uu ansaxayo haddii qofkii musaafirka ahay uu soomo soomkii lagu lahaa waa ka dhacaya hadduu afuro ajirna waa helaya waa ka gudaya ama haddii la yiraahdo yaa fadli badan waxaa fiican in wajiyaal dhowr laga fiiriyo
waxaan idhaahday qofka sooman musaafirka ah haddii soomka uusan dhibaynin soomka uu fadli badan sida jamaahiirta ay qabaan xanafiya iyo maalikiya iyo shaaficiya sida ay qabaan sidaasoo kale ibnu cuthaymiin sheekh la yidhaahdo mucaasirana sidaasuu ku tegay ayagoo daliishanayaan xadiidkii abidardaa radiallahu canhu oo ah kharajnaa maca nabiy sala allahu alay slam yaan la baxnay fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaarkood fii yowmin xaarin dharaar aada u kulul xataa yadaca arajulu ilaa ninka uu dejiyay yadahu gacantiisa calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa min shiddati alxari kulal dartiisa wamaa fiinaa dhexdeenna ma ahaanin saa'imun qof sooman ilaa maa kaana wixii ka ahaaday min annabiy nebiga ma ahee sal ly slam iyo ibnu rawaaxa labadoodaa sooma markaa doona soomka u bannaanaa lahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cabdullaahi ibnu rawaaxa afuri lahaa weeye xadiidka marka bukhaari muslim yaa wariyey amaa qofka musaafirka ah soonka hadduu ku mashaqoonayo dhib uu kala kulmaayo waxa uu fadli badan inuu iska afuro madaahibta afarta ana saasay isku raacsantaha wooye jaabir bnu cabdillaahi radiallahu canhu waxaa laga wariyey kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu caleyh wasalam fii safarin safar ayuu ahaa fa ra'aa wuxuu arkay isdixaaman cariiri iyo wa rajulan ninoo qad dulila caleyhi korkiisa la hareeyo marad dushiisa la saaray ee lagu babinaayo wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam maa haadaa ninkan arrinkiisa muxuu yahay waxay yidhahdeen waa sooman yahay kolka nabi slam wuxuu yidhahdee laysa min albiri assawmu fi safari samafalka ka mid ma ahan in la soomo qofka markuu safarka ku sugan yahay markuu dhibaatoonayo waa markuu soonka dhib kala kulmaayo oo markaa gaarsii karto qofka inuu halaagsamo kolkaa waxaa ku waajaba inuu afuro waxaana ka xaaraama inuu soomo jaabir cabdillaahi radiallahu canhu wuxuu yidhahday nabiga calayhi salaatu wasalaam waa baxay sanadkii maka la furanayay ayuu maka aaday caamulfatxi waa soomay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa uu ka gaaro kuraaculkhamiim meesha la yidhaahdo uu ka gaaro nabiga sal slam waa meel maka iyo madiina u dhaxayso dadkana way soomeen kolkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeeray weel biyo ay ku jiraan hallaykeenu yidhaahday korkaa nabi salaam kor ayuu u qaaday ilaa dadka ay ka wada arkaan nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu cabayo kolkaa kabacdi dadka qaarkood waxay yidhaahdeen waa soomay qaaraa waxay yidhahdeen waa soomannahay kolkaa wuxuu nabi salaam ulaa'ika alcusaatu kuwaas waa kuwo ilaahay iyo rasuulkiisa caasiyey waxaa marka la isweydiinayaa qofka musaafirka ah inuu afuro ma u bannaan tahay inta uu musaafirka yahay oo safarka uu ku maqan yahay haddii kolkaa qofka uu safro oo magaalo kale uu tago ou niyeysto magaaladaas inuu ku nagaado 4 maalmood ou ku nagaado inuu hadduu niyeysto wuxuu qaadanayaa dadka magaalada degan axkaamtoodu qaadanayaa waxaa ku waajiba soom markii la fiiriyo cinda jamhuuri ahlilcilmiga badankooda sida ay qabaan maalikiye iyo shaaficiye iyo xanaabila sidaas ay qabaan way laakiin 4 maalmood ka yar haddii uu joogayo oo magaalada xaaje ay ka soo gasho ama uu ka naqanayo ama uu ka gudbaayo inuu magaalada ku nagaadana uusan niyeysan muddo 4 maalmood uusan niyeysan waxaa u bannaan inuu iska afuro ilaa uu uga soo laabanayo beledkii asaga ah uu deganaa masalada kale waxay tahay qofka musaafirka ah hadduu gurigiisa soo galo maalin ramadaan hadduu safarkii ka soo laabto asagoo afuran waxaa su-aal laga keenay korkiisa ma waxaa ku waajiba inuu afeesto ilaa maqribka laga gaarayo masaladan ahlucilmigu waa isku khilaafeen qole waxay yidhaahdeen ku waajib maaha inuu inta soo hartay maalintii af xirnaade maadaama uu afurnaay waa iska dhammaystiranaya haba soo gaara magaaladiisa ha soo gaaree hadalkaa waxaa qaba maalikiyada iyo shaaficiyada iyo riwaayo xanaabilada ay qabaan ibnu cuthaymiin hadalkan ayuu doortay maxaa yeelay wax daliila oo ku waajibinayo inuu afka xirto ma jiraan way maxaa yeelay wax qada ah oo korkiisa ahaada ayaana jirin xurmadii zamanka ayada ahayd uu xurmayn lahaana way zuusho waxay ku zuushay ilaa waxaa loo ogolaa qofkan isaga inuu afuraa loo ogolaa
maalinta qeybteedii dambe inuu afuro maalinta qeybteeda hore maadaama uu safar ku soo jiray inuu afuro yaa loo ogolaa marka taas ay soo dhexgelaysaa wey marka ilaa aakhir nahaar halkaasi soo gelaysaa wey marka isagoo cudurka u baaqi yahay yay tusaale u tahay wey qowlka labaad waxaa weeye waxaa ku laazima inuu afeestay leeyihiin xanafiyada iyo xanaabilada weji shaaficadana saasoo kale ayuu qabaa ibnu baas sidaasuu doortay maxaa yeelay markuu musaafirka ahaa waa ka soo yimidoo magaaladiisa u yimidoo saara min ahlilwujuub dadka waajibka uu ka ahaa yuu ka mid naqday wujuuba caynin kolkaa wuxuu isku shabahayaa kuwa saa'imiinta ahaa isagoo siinayo waqtiga weyneynayo casharkeennii diiniga ahaa ee ku saabsanaa duruus ramadaaniya intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh